السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامجكيني maxay kula tahay su'aal baan idin weydiinayaa imsa sanadood baad u baahan tahay haddaad shaqaysatid inaad samaysid $1,000,000. su-aalka waxaa ka jawaabay website la yidhaha bcody.com oo Boolandiya. wuxuu diraasad ku sameeyey 102 dowladood oo uu sheegay dowladahaas ta ugu habboon ee waqtiga ugu degdega badan aad ku samayn kartid $1,000,000. kaalinta koobaad waxaa gashay dalka Switzerland. wuxuu ku leeyahay 14 sannadood baad u baahan tahay inaad Switzerland aad ka shaqaysatid si aad u samayn kartid $1,000,000. waxaa ku xigta dalka Singapore. waxaad u baahan tahay buu ku leeyahay website-kaasu 16 sannadood si aad u samayn kartid $1,000,000. dal sida Mareykanka waxaad u baahan tahay 19 sannadood. dal sida Qatar wuxuu ku leeyahay 21 sannadood baad u baahan tahay. dal sida Imaaraadka waxaad u baahan tahay 21 sannadood si aad u samaysid $1,000,000. dal sida Sacuudiga wuxuu ku leeyahay waxaad u baahan tahay 41 sannadood si aad u samayn kartid $1,000,000. dal sida Boolanda wuxuu ku leeyahay 77 sannadood baad u baahan tahay si aad u samaysid $1,000,000. dowladaha ama dalalka qaarkoodna kumaba jirto diraasadaas wuxuu ku leeyahay dalalka qaarkood haddaad 1,000 sannadood aad joogtid lacag gaadhaysa $1,000,000 ma samayn kartid. waxaanu website-kaasi uu ku leeyahay markastoo qofku lacagta account ugu jirta ay badato farxaddiisa iyo caafimaadkiisuna uu kordhaya. farxadda iyo caafimaadka iyo qofka noloshiisa inuu habbi ku noqdo niyadiisu ay wacan tahay waxay ku xidhantay intuu lacag uu haysto ay diraasadaasu ay leedahay. taasna qur-aankaaba xaqiijiyo wuxuu ilaahay sheegay inuu bini'aadamku lacagta xoog u jecel yahay oo wuxuu yidhi bismillaahi raxmaani raxiim watuxibuuna almaala xubban jamma sadaqa allahu alcadiim. laakiin inagu haddaan muslim nahay waxaan aaminsannahay lacagta iyo hantida iyo ubadka iyo wax kastoo la haysta yowm alqiyaama qiimo ma laha. waxa qura yowm alqiyaama shaqaynaya waxa weeyaan xasanaadkaas ayaa yowm alqiyaama ku anfacaysa oo janno ku gelinaysa ama naarta kugu tuuraysa. marka inaka diinteena islaamka waxa ugu muhiimsan ama hadafka nolosha u joogana waxa weeyaan sidan xasanaad iyo ajar badan aan ururin karno oo taas inoo gelin karto jannada oo jannadana meel sare iyo darajad sare ina geynaysa. haddaan ka fakarno ama xisaab yar aan samayno sideebaan u samayn karaa milyan xasanaad ama milyan xasanadood sidaan u samayn karaa. haddaad akhridid 10 juz oo qur'aana waxaad samayn kartaa milyan xasanadood. sababtu waxa weeyaan juz'iga qur'aanku wuxuu ku siinayaa 100,000 oo xasanaad ayuu ku siinayaa. hadduu juz' kasta xuruufta ku jirta ay tahay 10,000 oo xarfi kasta wuxuu ajarkiisa lagu kordhinayaa inuu gaadho 10 laab. marka halkaas marka la xisaabiyo 10 juz waxaad ka helaysaa milyan xasanaad. 10 juzna wax aad u badan maaha ma adag 2 cisho ama 3 cisho waad ku dhamayn kartaa 10 juz. sadaqadu ajar aad u badan bay leedahay laakiin haddaan doonay inaan xisaabiyo sidaan u heli karo milyan xasanaad san u heli karo haddaan bixiyo $1,429 waxaan ka helayaa ajar u dhigma milyan xasanaad ayaan ka helayaa. طبعا hadday niyadeydu tahay dar ilaahay oo niyadeydu ay wacan tahay oo lacagtan aan bixinay ay tahay lacag xalaala ilaahay wuu aqbalayaa. sababtu waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man anfaqa nafaqatan fi sabiilillah kutibat lahu 700 ضعف. يعني qofka wax bixiyo dar ilaahay ajarkiisa waa loo badinayaa oo 700 jeer ee ajarkiisa loo kordhinayaa. marka haddaan $1,429 aan bixiyey aan ku dhifto 700 waxay ku siinaysaa milyan xasanaad ayay ku siinaysaa. haddaba ka waran ma heli karnaa milyan xasanaad wax waqti ka yar 1 minute. taasuna waa suuragal. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xadiis buu wuxuu qofka marka suuqa uu galo idhaaha قال النبي عليه الصلاة والسلام من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتبت له 1,000 حسنة ومحيت عنه 1,000 سيئة ورفع له 1,000 درجة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka ilaahay xusa markuu suuqa uu joogo ama ilaahay xasuusta wuxuu leeyahay ajarka 1,000 xasana.
ألف حسنة داس مركا الدعاء التراهيد أياد ليضة هاي ألف حسنة وحي لمتهاي مليون حسنات أي لمتهاي أجر كيدي sababtu ajarka weyn uu leeyahay ducaaga suuqa marka la galo waxa weeyaan qofka dadku inta badan xalka waxa ku mashquulaan ganacsiga iyo lacagta iyo xisaabta ku mashquulaan inay wax iibsadaan marka qofka markaas ilaahay uu ku weyn qalbigiisa ilaahay xasuusta ee ducadan ilaaha ajarka weyn ayuu qaadanayaa waxyaabaha kale ajarkeedu aad u badan yahay waxa kamid ah soomka soomku qofku markuu cuntadiisa iyo shahwadiisa dir ilaahay u daayo ajar weyn ayuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kullu camal ibni aadam yudaacaf alxasanatu 10 amhaaliha ila 700 ضعف qaala allahu caza wajal ila الصوم fainahu lii waana ajzi bihi yadcu shahwatahu طacaamahu min ajli صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحو كليه صومك أجر كيدو آد بو بدن يهي أجر كيدا إلهي وقري إلههم بأجر كيدا أوك مركا هداد سونتد مالين أد سونتد لقيا بإناد كيشد أجر كبضا مليون حسنات وحكا حيقا دكرقا قفكو مركز إنو لا يحسو دكرقا سو بدن يهي أما هنقض تسبيح أما صلق النبي أما استغفارك النبي عليه الصلاة والسلام وحو سبق المفردون مركا سالقولي وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحوليه هاي ددك ويدافين ويكديريين ددك ذكرك بدن عرب كود انت إلى حسوسنا يا مركاتاسون أجر آد وبدن بيلاد هاي تاس وحويان وحيابير أنو مالينايو inaad ajar badan aad ka helaysid ka waram haddaan hadafkeena maanta waxaa laga bilaabo nolosha aan ka dhigno sideeban u samayn karnaa xasanadaha ugu badan ama sideen u ururin karnaa milyan xasanaad maalin kasta haddaba maxay kula tahay haddaan ka dhigno maanta sharciga cusub ee nolosha aan ku soconayna inuu noqdo sideeban ajar badan aan u samayn karaa ama sideeban xasanaad fara badan aan u samayn karaa maalintii yawm alqiyaama aanu dirhamku iyo diinaarku aanu shaqaynaynin waxa qura shaqaynaya waxa weeyaan xasanaadka adduunka markaad joogtay aad shaqaysatay ilaahay quraanka wuxuu yidhi bismillaahi raxmaani raxiim yawma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim maalintaas aanu ubadkaagu أنفعين إلى عقد أنه كأنفعين وحقوله كأنفعين وحويان قلبي نظيفة وإلهي حسوسنا يصدق ضبضني أجر بدن أتصمي ستي وما هالسنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.